dhammaanteen waxaan leenahay taleefan nambar noocaas ah. dhammaantii waa garanaysaa nambarkaaga, kan familkaaga iyo kan asxaabtaada. laakiin weligaa mis weydiisay maxaa loola jeedaa lambarada isku geeyay sida +252 +253 +1 iyo wixii la mid ah? maxay isku kala duwan yihiin oo waddan walba nambar gaar ah oo horgale u leeyahay? su'aalahan iyo kuwo kale oo badan aan jawaabtooda isla eegno. waxaa jira urur caalami ah oo lagu magacaabo International Telecommunication Union ama loo soo gaabiyo ITU. waa mid ka mid ah 15 urur ee khaaska ah oo ay leedahay qaramada midoobay. waana urur caalami ah kaasoo la tacaamulo diblomaasiyadda amniga ayay ka dhaxaysa wadamada caalamka oo idil iyo arrimo kale oo muhiim ah oo la xiriira arrimaha waajibaadkooda, dhisidda xiriirada isgaarsiinta u dhaxeeya wadamada caalamka. qaybtanina waa meesha ay mas'uuliyadda ka saaran tahay waaxda ITU. mas'uuliyiinta ururkaasi waxay aasaaseen furo gaar ah waddan walba iyo isku xirka xiriirka caalamiga, waxayna u qaybiyeen guud ahaan caalamka oo idil 9 gobol oo waaweyn. iyada oo loo fiirinayo gobol kasta, waddan walba waxa uu leeyahay horgal qaas ah oo ah nambar tilmaamaya furo dal. tusaale, haddii aad taleefankaaga ku qortid balaas kadibna aad qortid nambarka ugu horeeya ee furaha dal, waxa uu talkaagu si otomaatiga ugu xirmayaa qadka taleefanka ee gobol kale. furaha aad qortay tirooyinkaasi ku xiga ee aad qortid ayaa si toos ah kugu xiraya qofkii aad rabtay. haddii aan si kale u yiraahdo, ugu horeyn waxaad dooranaysaa qaaradda, kadibna waddan, kadib gobol ku yaala waddankaasi, kadib shirkadda isgaarsiinta ku taala magaalo cayiman. ugu dambeyntiina waxaad kasii dooranaysaa nambarka isdiiwaangelinta ee macaamilka ama qofka. tusaale ahaan, qorshaha nambareynta wadamada ku yaala waqooyiga Ameerika waxay leeyihiin nambarka +00. si aad u wacdidna gobol Afrikaan ah waa inaad qortaa +2 kadibna aad raacisid furo waddan oo cayiman. tusaale, +252 waa furaha qaaradda Afrika oo ah +2 oo raaciyay furaha dalka Soomaaliya oo ah 52. sidoo kale gobolada leh +3 +4 waxay ku yaalaan qaaradda Yurub. marka nambar walba waxa uu taagan yahay gobol gaar ah, waxaa si fudud internetka ugu heli kartaa shaxda ama teebalka gobol walba iyo furihiisa gaarka ah. mala socotaa inay dadka bilaabeen inay si ballaaran u isticmaalaan isgaarsiinta wireless-ka ah ama bilaafiilada ah keliya 90-yadii bilowgii qarnigii 21aad. ka hor taas, guri walba waxa uu lahaa taleefan u dhaxeeya dadka oo idil. dabcan wuxuu ahaa taleefanka kuwa loo yaqaano landline-iska. aan isla aragno sidee bay ku bilowdeen waxaasoo dhan. waxaa la sheegay Alexander Graham Bell ayaa waxa uu sameeyay taleefankii ugu horeeyay 1877. dadka ayaa dejiyeen qadka taleefankii ugu dheeraa ee ugu horeeyay ee ku fidsan gobolada Newfoundland ee California. xilligaasi waxay ahayd arrin cajiib ah. la hadlida qof ku jira 10 miles waxay ahayd mid ka baxsan malaawaalka cilmiga sayniska. ikhtiraacdan ayaa si fudud ugu baahday caalamka oo idil. sidoo kale dhammaadkii qarnigii 19aad, dadka taajiriinta ayaa awooday inay iibsadaan ama isticmaalaan taleefanada. laakiin qarnigii 20aad, taleefanka landline-iska ayaa waxa uu noqday mid caan ka ah ku dhawaad guri walba. tirada isticmaalayaasha ayaa dhaaftay 100 milyan oo adduunka oo dhan. kadib taas waxaa timid teknolojiyadda wireless-ka ah oo ah in lagu xirxiro qalab aysan wax fiilo ah aysan xiriirinaynin. 1973 shirkad lagu magacaabo Motorola ayaa ikhtiraacday noocii ugu horeeyay ee taleefanada wireless-ka ah. qalabkan aadka culus waxa uu gaaraya culayskiisu 1 kilogram, waxauna keydin karay 30 lambar. dabkiisuna wuxuu ahaa 60 daqiiqo oo isticmaalidda ah. 20kii sano ee xigay, soo shaacbidda taleefanada noocyadaas ayaa aad u soo siyaaday. kadib 1993 shirkad lagu magacaabo IBM ayaa ikhtiraacday taleefankii ugu horeeyay nooca smartiga ah. 2 sano kadib, taleefankan ayaa suuqa aad uga soo muuqday qiimo gaaraya $1,100. 6 bilood kadib, in ka badan 50,000 taleefan ayaa la iibiyay. taleefankii ugu horeeyay smartphone waxa uu ahaa touch screen. waxa uu diri karay loona soo diri karay email iyo fariimo qoraaleed. wuxuu lahaa calendar, notebook iyo mighty planner.
sidoo kale wuxuu lahaa cable la taaban karo. 1995 isticmaalayaasha taleefanada wireless-ka ah waxay ka badnaayeen 35 milyan. 2008 tiradan way ka badatay, waxay gaadhay 270 milyan oo qof. intii lagu guda jiray xiliyadan 25% ayaa iska joojiyay taleefanada landline-ka ah. dadweynaha Amerika markay taleefanadii ugu horey bilaabeen inay aad ugu faafaan oo ahayd qarnigii 20aad. Hindisa Nikola Tesla ayaa waxa uu saadaaliyay soo shaabixista taleefanada smartphone-ka. waxa uu yiri markii ay 1926 markii wireless-ka si fiican loo dabaqo, dhulka oo dhan wuxuu isku bedeli doonaa maskaxaad weyn. waxa kale oo saadaaliyay in aysan kaliya isla xiriiri doonin, ayna is arki doonaan iyagoo isku jira kumanaan maylis. waxaa kaloo la sheegay in dadka awoodi doonaan inay jeebkooda ku qaadaan qalabkaasi, kaliya isma bedelin taleefanada iyo isgaarsiinta. waxaa sidoo kale isbedelay dhaqaalaha dunida. 14 milyan oo shaqaale ah ayuu abuuray taleefanku. kacdoonkii xigay ee taleefanada waxa uu ahaa 2007 markii uu lasoo bandhigay iPhone-kii ugu horeeyay ee dunida, kaasoo baaxadiisa ahayd 3.5 inji oo shaashad u badan. sidoo kale kaamiradiisu waxay ahayd 2 megapixel. mobilka ugu qaalisan dunida waa Qualcomm Supernova iPhone 6, wuxuuna ka samaysan yahay dahab iyo diamond. qiimihiisuna waa $48.5 milyan. adiga mobilkaagu waa noocee?